qayb ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis ayaa waxay kala hor yimaadeen banaanbax aad u ballaaran madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku yimi gobolka Minnesota xarunta weyn ee Convention Centerka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Minneapolis xarunteeda Convention Center xaruntaas uu imaanayay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh balse banaanbaxyaasha iyagoo qaylinaya ayay waxay kala hortageen madaxweynaha dooni mayno faragelinta aad ku haysa dastuurka Soomaaliya dooni mayno in dastuurka wax laga bedelo madaxweyne waxa lagu soo dirtay dastuurka Soomaaliya oo ah mid federal state sidoo kale dadka banaanbaxaya ayaa waxay ku dhawaaqayeen in Soomaaliya aan laga qaadan cunaqabataynta sidoo kale waxa boorarkooda ku qornaa in dowladda Mareykanka ay sii wado la shaqeynta maamulada jira dalka Soomaaliya haddaba mudaharaadkaas oo ah mudaharaad looga soo horjeedo madaxweynaha federaalka Soomaaliya waa madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee yimaada magaalada Minneapolis ee lagu mudaharaado haddaba mudaharaadkaas ayaa waxa ku dhamaaday jawi aad u fiican بحنا وفدرالك يديدين هاي نكن يو جبويك معناها رميسة مدونينا قبياليستي مدحوينا ومدن مدحوينا وبان دونينا مدحوينا هالبيل كصعبة وبيل تاجرية وضد كلا قيبية ودونية إنه دقات لا تصل كورنا عين نقول عليه مدونينا مدحوينا عدالة بان دونينا مدحوينا عدالة وحنو بنام بحنا وحرنا مدحوينه إنه كان سمد السوركة مدحوينه وحرنا إنه سن فريق المامور الجرا وحنا مدحوينه وحرنا إن فدراليزم كله يرجله وحرنا إن شرعي الله دوره دام الجديد دوني معنا because وحاوي إن السوركة الأولى ما ربنا السوركة الصومالية الله دقي حتى يصير السوركة آمن سنين أنا مقاضرينه ما أنا آمنين مدحوينه ربنا هنا هم وجنا إنه مدحوينه ومد الصوماليات أي أول سمتها إنه نقضوا وصي عدالة وكل شيء السور كانوا نقول dadkan waxay u soo manaabaxeen in madaxweynaha uu dadka isu keeno in madaxweynaha uu ka shaqeeyo waxyaalaha dadka isu keeni kara ma loo baahna in hadda waqtigan oo dawlad rasmi la dhisay inay dadku iska hor yimaadaan khilaafaadkii Soomaaliya burburiyay inay sii socdaan dagaal sokeeyo dooni mayna waxaan ka wadnaa madaxweynaha Soomaaliyeed cadaalad darro wada ma doonina cadaalad darradaas dadka qaarkoodna wuxuu leeyahay soo dhista maamulkiina dad kalena wuxuu leeyahay anaa idin dhisay aan u soo madaxbaxay madaxweynaha dastuurka lagu soo doortay oo uu u dhaartay ha ogolaado isagu haddaayo waxaan nahay dadka North America ku nool 20 sano wadankeena ma arag waxaanu doonaynaa oo Soomaaliya ay ku kala badbaadaysaa waa federalism xasan madaxweynaha hadduusan doonaynin federaalka annaguna ma doonayno magacaygu waa Cabdisamad Cali Nadiif waxaan halka caawa qabowga u taaganahay inaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku madaaraado sababtoo ah waxa weeye maalinka la doortay ilaa abtuna wuxuu ku mashquulsan yahay Jubbaland gobolka Banaadir ee caasimadda Soomaaliya Soomaalidu bay ka dhaxaysaa waa federaal xaq waxaan u leeyahay inuu degmooyinka federaalka ee magaalada gobolka Banaadir ah wax ka helo madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in lagu banaanbaxo isagoo sheegay in aan qori loogu banaanbixin balse boorar ay wax ku qoran yihiin loogu banaanbaxay sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu qiray in dadka mudaharaadayay waxay u mudaharaadayaan oo cabashadooda ah in uu tixgelin doono dibna uu fiirin doono faraxsanahay haddii aan iskhilaafno ama kala ra'yi duwanaano haddaan tabeelayaal qaadanayno ee aanan qoraca ka qaadanayn banaanbax aad u ballaaran ayaa waxa ka dhacay xarunta Convention Center banaanbaxaas oo looga soo horjeeday imaashaha madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya balse madaxweynaha ayaa qirtay in dadka Soomaaliyeed ku dhaqan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota in ay ku banaanbaxeen madaxweynaha waxa uu sheegay in ay maanta tahay maalin aad u fiican inkastoo ay qoryo wadan balse ay wateen boorar ay ku diidanayeen madaxweynaha federaalka Soomaaliya
madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in dadka banaanbaxay uu ogol yahay inay la soo fadhiistaan zakariya aadan universal TV North America